soo gabagabeynayay tartankii degmooyinka gobolka Banaadir ee dhanka kubadda cagta ayaa xalay waxay dhex martay degmooyinka Waaberi iyo Shibeys ciyaartaas oo daawashadeeda ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo dawladda Soomaaliya ah iyadoo goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaana ciyaartaasi hal gool iyo eber guusha ay ku raacday degmada Waaberi oo sanadkii labaad oo xiriir ah ku guuleysatay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ciyaartu markay ay dhamaatay ayaan wax ka weydiiyay kabtanka degmada Waaberi sida uu arko guushan ay gaareen bismillaah waxaan magaciisa Cabdiriid Cali Baashi waxaan ahay kabtanka suurta geliya 4 sano inay imaado degmada Waaberi finaal waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mar labaad aan haween champion noqdo waxaan leeyahay walaalahay maqlaay waa maasantihiin waxaan leeyahay dirgelinta inta ka sii socotay Waaberi guul waana maasantihiin Waaberi ayaa aad iyo aad ugu dabaaldegtay guushan ay gaareen laakiin waxa dhankooda aan ku qanacsanayn qaabka wax u dhaceen degmada Shibeys anigoo macalinka degmadaasi macalin Laash wax ka weydiiyay hadii uu ku qanacsan yahay sida ay wax u dhaceen walaanaga gool darey uma dhicin arbita Waaberi ahay arbita waa la soo gatay umaleynaa kulay dadka dhan oo jeeda TV-ga in lagu soo celiyo xataa way diideen in lagu soo celiyo marka waxa waaye arbitaalkan caada qaatiyaalay noqdeen marka ana laga qabtaan dhiilay macalin ayaa tahay arintan soo inaad dhibaato ku timaado ama ganax kaaga yimaado soo kama cabsanaysa taas kama cabsanay dadka dhan u jeedaan dadka dhan u jeedo calan caadi dadku goosho ku jira 5-4 ka sii dambeeya wallahi uma hambaleenay sababtoo ah qalad ay ku qaadatay arbita u hiiliyay si kastaba haatee degmada Waaberi ayaa la guddoonsiiyay koobkii waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow oo ka warbixiyay ujeedada ay u qabteen